dadka shacabka ah ee ku nool degmada Afbarwaaqe ee gobolka Mudug ayaa waxa soo wajahay xaalado nolol xumo waxa ayna sidoo kale sheegeen in hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada maamulka Galmudug deeqaha ay inta badan gaarsiiyaan deegaanada Galmudug aynan soo gaarin degmada Afbarwaaqe ee gobolka Mudug odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Afbarwaaqe ee gobolka Mudug iyaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa inaan sheegno waxa ay ku nooshahay sida nolosheedu dadkeeda iyo dalkeeda iyo ceesheeda ay tahay magaaladani ayadoo intaas ka tirsan oo dawlad kasta hoos timaada waxaan ku diidaynaa inay ka qasab tahay waxa maamul dawlad nacfigeed iyo hay'ad iyo aqoonsi iyo arag inta looga baahan yahay dawlad iyo hay'ad hoose waddanka federaalka iyo meeshaan marxi isbitaal dadkeeda ku bukooda dadkeeda haweenku hadday umulahayaan naf waxaa lagala raadiyaa baabuur loo dhiga gaalkacyo meel dhexe bay ama ku dhifwaadaan ama haddii ilmaha alla uga keeno ilaa qof umurihii barbar buu u dhacahayaaye inta geed hoostii la dhigo meeshaas ay khatar ku gasho dhaawac wax kasta haata ama bahal ha cunaqodixi ha muddo ama si kasta haate dhibaatadaasaa lagu qabaa waxay u dhacaysaa jariima iyo gaalkacyo iyo obyo waa xagga daawada isbitaalka male hadalka baahida ka jira degmada Afbarwaaqe Maxamed Maxamuud Guureed baa ka sheekeeyey aniga hadalkaygu wuxuu yahay intii ka dambaysaa maratuur intuu ka sheekeeyay biyahaas xareedda ay markay noo galaan xareedda waa cabnaa wax kale oo macaawiyo ama meel nooga yimaado ilaahay ma jiraan sidaas awgeed biyo mare 2 sano ka hor baa waxaa la yidhi waxaa la idiin keenayaa warshad biyaha sifaysa nolomana keenin ceelka badda waa ka dhanaanya maqoorkayow ceelasha aan cabnaa waa ceelal haraara oo kuraara cunada lagu cuni karin isbitaal marihi umulisa isbitaal macnaha macaawiyo marihi MGM marihi qofka meeshaan islaamka dhalaysa waa la qaadaya qofka bukoonaya waa la qaadaya gaalkacyo oo 200 kiiloomitir noo jira baa loo dhigaa 160 kiiloomitir ama 170 kiiloomitir buu jira naagta dhalaysa halkaas loo qaadaa ama ayagoo dhimatay la geeyaa ama waa iska dhashaa macnaha dayac noocaasa ama baahida noocaasa biyaha aan ku hoyanaa waa jaban yihiin waa burbursan yihiin wax meel xaqasha aan ku hoyanaa oo lagu noolaan karin dadku noo jooga ilmahayaga waxayaga meeshaasaan ku hoyanaa jidaal markay tahay biyaha toosadi $10 baan arka siiyay buurakaasaan u raadsanay markay doog tahay oo roobku doodo xareero yaryar baan haynaa dhinaca kale gudoomiyaha degmada Afbarwaaqe ee gobolka Mudug Cabdullaahi Jaamac Dhoore ayaa isna waxa uu ka warbixiyay xaaladda xilligan ka taagan degmada Afbarwaaqe ee gobolka Mudug isagoona baaq u diray maamulka Galmudug iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay kala u baahan tahay wax allaale waxa arrimaha bulshada ay waa ka riban yihiin caafimaadka isbitaal male biyo fiican male oo biyo lacag male malahan waxbarasho fiican ma jirto waxbarasho ma jirto waxa weeye dhismayaashiina saas u burbursan waxaa kaloo jirta jidxumo gaalkacyo annaga waxaa noo dhaxaysa 187 kiiloomitir 40 kiiloomitir baabuurkii la sitimaan mara dibta waa baabacsan yahay waa baabacaa marka marna marka soo gaaraba degmadaas dagaaladii hore waqtigii hore ayay ku burburtay dibna uma aysan soo noqonin sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa adduunweynaha ka codsanaynaa dowladda federaalka ka codsanaynaa dowladda Galmudug ka codsanaynaa hay'adaha wax gargaara ka codsanaynaa in il gaara lagu fiiriyo deegaankaas Afbarwaaqe iyo inta hoos tagta iyo Raida Cali Ciise telefishinka caalamiga ee Sahan Cadaado Galgaduud Soomaaliya.